السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتم وناسان dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan halka aad naga dhageysanaysaan naga daawanaysaanna waa radio Soomaali weyn otta sidoo kalena waxaad naga daawanaysaan dhegeystayaal page-ka Soomaali weyn Facebook. barnaamijkeenan maanta wuxuu noqon doonaa qaybtii labaad ee caafimaadka oo aan uga hadlaynay cudurrada ku dhaca wadnaha iyo saameynta ay ku leedahay aadanaha. waxaan kugu soo dhaweynayaa tutore barnaamijkan joogtada ee bil walbaba ka baxa radio Soomaali weyn. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ودوهي tutore intaadan sii garin waxaan jeclaan lahaa in aad noo soo xasuusiso dadweynaha dhageysanaya ama na daawanayaba barnaamijkii hore iyo meeshii uu noo joogay. بسم الله. bishii waxaan ka hadalnay cudurrada ku dhaca wadnaha oo aynu kala qaybinay cudurka waxa keena wadnaha inuu u qaybsamo laba nooc. cudur ilmuhu ku dhasho oo inta uu ku jiro caloosha hooyadii soo qaado oo isagoo cudurkii qaba markaa ilmihii soo dhasho. ta waxaa loo yaqaanaa congenital disease. iyo cudur ilmuhu qaado markuu xoogaa soo koro ilaa intuu ka gaarayo niwankii noqonayo. marka aan ka hadalnay inta badan nooca ay kala yihiin iyo cudurrada ku dhaca ilmaha ku dhasha waxaynu nidhi waa cudurrada ku dhaca waxaa loo yaqaano valveka ama loo yaqaano haniyaha. haniyuhu waa cad yar oo jilicsan oo dhiigga sida albaabka oo kale moogtay kala qaybiya oo dhiigga mataqaana u ogolaada inuu dhiiggu hal meel u socdo oo aan dhiiggii ka baxay xiid ka baxay dib ugu soo noqon. marka waxaa kaloo dhici karta ilmuhu ku dhalan karaa in gidaarka u dhaxeeya ee kala qaybiya qolalka wadnaha in ay mararka qaarkood ilmuhu dhasho labadii qol oo isku furan oo doleel uu ka dhex jiro oo markaa dhiiggii isaga dhex gudbayo labadii qol waxaa loo yaqaanaa shant sida taqaanaa labada qole hoose ay isku furan yihiin waxaa loo yaqaanaa VSD ventricular septal defect. waxaa dhici karaa labada qolo sare qudhooda oo loo yaqaano dhegyarta iyana waa isku furmi karaan waxaa loo yaqaanaa arterial septal defect. mar waxaa dhici karta in mataqaanaa labada xidid ee ka baxa wadnaha iyo kasoo gala ilmaha intuu ku jiro calooshoodii inay awdmi waayaan oo isku furmaan. marka waxaynu ka hadalnay ilmaha inta badan cudurrada qaba waxaa lagu arkaa ilmahaasi markuu ooyo kale wuxuu isku bedelaa midabkiisu sidii buluug oo kale. bishmaha iyo cidiyaha iyo carabka ayaa waxay noqdaan buluug. markuu ordo ka xiiqaa koritaankiisu mataqaana wuxuu noqdaa gaabis baa ku yimaada. waxaa ku dhaca cudurrada ku dhaca feeraha oo kale ilmuhu badanaa hargab kaga baxo. marka waxaan intaas kasoo koobayaa waxaa jira oo kale cudurka haniyaha ee ku dhaca ilmaha roon ama ilmaha xoogaa leeg. waxaanu sheegnay in laga qaado bacteria loo yaqaano streptococcus beta hemolyticus oo badanaaba xuqadaha badanaaba moogtay keenta ama loo yaqaano tonsillitis-ka. marka sun loo yaqaano streptolocin bay sii daysaa. suntaasi haddii dhiigga raacdo waxay badanaa mararka qaarkood ay degi kartaa haniyahan soo sheegnay. marka ilmahaas wuxuu qaadi karaa wadna xanuun iyo lafa xanuun iyo wax lamid ah. haddaan intaa kusoo koobo dariskeenii hore aan ka hadlay cudurrada wadnaha qaybtiisa labaad maanta waxaan ka hadlayaa cudurka ku dhaca xididka dhiigga siiya wadnaha. wadnaha xididaha ka baxa qaarna waa kuwa dhiigga jirka gaarsiiya qaarna waa xidida yaryar oo wadnaha laftigiisa waraabiya dhiigga wadnaha siiya iyo nafaqada siiya. cudurkaas ku dhaca xididkaa yar inta badan waxaa keena marka ay maado loo yaqaano cholesterol oo dufan asal ahaan ka timaada ay ku badato jirhkii. sida caadiga dufanka dhiig ku jira waxaa loo yaqaana cholesterol ama loo yaqaana qayb ka mid ah cholesterol iyo triglyceride. marka inta badan dhiiggay raacaan borotiin baana xambaara
oo loo yaqaano lipoprotein. markaa badanaa xididka dhiigga badanaa kuma hakadaan, xididka dhiiggana ma qabsadaan. laakiin mararka qaarkood waxaa dhacaya in dufankii xididka marayey ku dhaco waxa loo yaqaano oxidation ama oxidayn uu ku dhaco, oo markaa dufankii caadiga ahaa ee cholesteroolsha ahayd, dhibidkii caadiga ahaa uu isku bedelo maado sun ah oo aan caadi ahayn. marka maadada cusub ka dhimatay dufankii la oxidaas gareeyey waxay dhacaysaa inay gidaarkii xididka ay qabsato. way caadi ahaan qofka caadiga waxayaan maado libidka dufankaasi badanaaba kuma dhago gidaarka xididka kuma dhago. laakiin marka la bedelo oo maado cusub ay soo baxdo oo loo yaqaano oxidized lipoprotein libidkii, waxay qabsanaysaa ku dhegaysaa gidaarkii xididka. marka xididkii wuxuu u arkayaa xididkii wuxuu u arkayaa maado cusub oo jirka ku cusub. marka dagaal baa lagu qaadayaa. xididka moogta waxaa ku wareegsan unugyo cad baa ku wareegsan oo difaac u qaabilsan. markay arkaan waxaan cusub ee jirka soo galay waa la qabanayaa oo gidaarka moogta weer lagu qaadayaa. marka weerka lagu qaado halkii waxaa sugu imanayaa dufankii isbedelay, unugyadii caddaa. marka waxaa abuurmaya wax yar oo u eg buro u eg oo loo yaqaano ateroma. marka buradaasi mar ka dambeysa haddii aan qofkii la daweyn oo qofkii ama cuntooyinkii cuni jiray dufankaa iska yarayn, ama qofkii dee enerjigii faraha badnaan isticmaala dee jiim iyo cayaar iyo tabar iyo jimic samayn, oo markasta ay dufankii sii bato waxaa sii kordhaya maadadii aanu sheegnay dufanka ka timid oo isbedeshay. marka buradii way sii waanaysaa oo moogtii marka noqonaysaa buro weyn oo gaadho heer ay xataa xididkii xidho. haddii markaa mararka qaar waxaa dhacaysaa markuu xididkii markastay buradii sii korodho waxaa abuurmaya markaa moogtay waxa loo yaqaano si taharti oo kale ama loo yaqaano fibrin oo kale. markaa buradii waa adkaanaysaa oo dhagax bay noqonaysaa markaa moogtay. marka waxaa laga yaaba hadii si adkaato marka dambe in ay dilaacdo, oo marka ay dilaacdo meeshii dhiigeed ka yimaado. dhiigga hadduu ka yimaadana dhiiggaasi xinjiroobi karo, marka ay noqon karto meeshii xinjir isu bedeli karto. waxaa loo yaqaanaa atherosclerosis. marka badanaa waxa cudurka badan ee keena in qofku ku dhaco waxa loo yaqaano ear infarct. waa tahay titore aada iyo aad ayuu u muhiimsanaa qodobada aad taataabatay. inta badan wadnuhu dhexdiisa ayuu saameyn uu isku yeeshaayo in xididada ay xirmaan, iyo sidoo kale in saameyntu ay gaarto wadnihii oo kale uu quudimayo. isagii dhibaatada kala dhex marto wadnaha yaana dhihine maskaxda, dhibaatada isaga iyo maskaxda kala dhex marto iyo sida uu quudiyo iyo xididada maskaxda oo kale saameyntu uu ku leeyahay isaga shaqadiisii. taasna titore wax soo kooban ka hadal. warta maskaxda gelin tan almost ku dhamaystiro asaa wadnaha waan ogsoonahay almost dhiigga xidida yar ay wadnaha nafaqa siiyaan. waayo murqaha wadnuhu waa murqa joogto u shaqeynaya. waxay u baahan yihin laba shay u baahan yihin: nafaqa inay helaan, inay oxygen helaan. waayo muruq intaa shaqeynaya mugta dee automatic u shaqeynayo aan marna istaageen. marka haddii muruqaasi marka oxygen waayo ama dee nafaqadii waayo waxaa ku dhacsa yaqaano anjana. marka hore anjana, marka labada cudur ee xididkan waa laba cudur baa ku dhaca oo loo yaqaano anjana bacteris iyo myocardial infarction. marka waxay kala yihiin kan hore. marka waxaanu sheegnay in xididkii buradii yarayd ay xididkii mugtii mataqaana gudihiisii ay mataqaana yareynayso. marka bilowga hore cudurka qofku marka hore waa caadi, laakiin qof markuu ordo ama wax culus qaado ama jimicsi u sameeyo ay waxaa ku dhaca yaqaano anjina. waayo dhiiggii murquhu bahraayeen, ninkan ordaya ama jiimka cayaaraya ama shaqeynaya, dhiiggii jirku murquhu baahnayn wadnuhu baahnayn ma heliyaan. marka waqti waxaa loo yaqaanaa anjina bacteris. laakiin qof markaa waxaa loo yaqaana wadno qabad baa loo yaqaanaa. qof marka wuxuu dareemayaa wadno xanuun buu dareemayaa, halkaas ka qabanayaa. wadno mugti xanuun xoog badan sidii culayskii oo kale loo qabanayaa.
xanuunkaas inta badan mugti waxaa lagu arkaa halkaa mugti naaska hoostiisa lagu arkaa wuxuu fidi karaa gacanta bidix wuu fidi karaa ilaa iyo mataqaana daanka u fidi karaa laakiin haddii qofku markaa joojiyo hawshii uu qabanay joojiyo markaa nasto xanuunkii wuu ka tagaa oo inta badan xanuun waqti ma qaato laakiin waxaa halis badan marka xididkii dilaaco ee meeshii dhiig ka yimaado dhiiggii xididka bedelo xididkii xidhmo markaasa halis badan waata kita yaqaano myocardial infarction ama yard infarct keenta waayo markii xididkii muruqyada dhiig waayaan waxaa ku dhaca yaqaano wadno wareen waayo mugti wadnihii dhiig ma helayo marka qaybtii xididkii waraabinay way madoobaanaysaa markii madoobaato waxaweyaan qofkaasi waxaa ku dhacaya dhowr baa ku dhacaya mugti complication baa ku dhacaya in wadnihii dee caada u shaqeynaya qaybtaas madoobaatay ay shaqeyn weydo markaa hoos dhac ku yimaado shaqadii wadnaha waxaa loo yaqaano arrhythmia in garaaci wadnuhu caadiga ahaa uu khalkhal ku yimaado markaa mugti waxaa loo yaqaano ventricular arrhythmia mugti meshi ama fibrillation uu ku yimaado iyo wadnihi istaagaba waxaa loo yaqaano cardiac arrest uu ku dhaco taana way dhici kartaa mugti marka taa waa xagga wadnihii sida sheegaysay sida ahayd xagga maskaxda waa la mid waayo maskaxda u dhida mugti waxay u baahan tahay dhiig bay u baahan tahay dhiigga u baahan tahay dhiig waxaa ambaarsan yahay oxygen marka haddii xidid xidhmo haddii xidid xidhmo marka badanaa mugti waxaa dhacaysa in maskaxdii qaybtii xidhantay ay dhiig waayeyso marka qaybtaa xidhantay badanaaba waxay xukuntaa dhaqdhaqaaqa jirkay xukuntaa murqaha jirka gacmaha lugaha yoormas carabka afka ayay xukuntaa marka waxaa ku dhacaysa waxa loo yaqaano stroke baa meesha imanaya markaa mugti waayo xididka baa xidhmay dhiiggii baa istaagay maskaxdii dhiig bay weyday waxaa ku dhacay loo yaqaano almost brain ischemia mugti ku dhacaya iyo infarction sida wadnaha kale markaa mugti waa tahay titore aada iyo aad ayaa u bayaanisay midaan haddaan usoo laabta wadnaha waxaa sheegtay in wadnuhu uu kasoo baxayo buro soo ma jirto in qofkii wadnihii xididkii isagoo aan buro galin waxyaabaad gelin inuu iska xirmo ama ha noqoto dufin xirtay xididada inta badan xirtana uu xirmana ma halboolayaasha miyaa mise kuwa yaryar buro maaha waxaan ujeeda dufanka laftigiisa ku sharxay dufankan mugti markuu caadiga yahay inta badan mugti dee xididka badan kuma hakado oo kuma istaago uu dhaafayaa mugti laakiin marka cholesterolsha mararka qaarkood ay heer sare gaadho oo mugti waxaa kamid a mararka qaar waxaa dhacaysa in qayb kamid a cholesterolsha caadiga ahayd waxaa loo yaqaano oxidation dhaco oo maadadii caadiga ahayd naqaana isbedesho maado kale cusub isku bedesho marka badana maadada marka xididkiisa ay soo gaadho sooran uniyada caadi jirka ayaa waxu arkayaan wax mataqaanaa foreign body ah mugti ama shay qariib oo kale marka markay soo qabtaan jaa mugti soo nuugayaan gidaarkii xididka ayay ka xirayaan markaa dagaal baa ka dhacaya soo garan dagaalka waxaa loo yaqaano inflammation markuu dhaco halkaa mugti taqaana dagaalka joogtada mugti waxaa abuurmaya in mugti marka ka dambeysa ay xuubkii gidaarkii taqaana xididku uu soo fooco buro maha mugti baxdi maha uu soo foocaya soo koraya ilaa uu gaadho xididkii caynka ahaa midigu marayay ilaa jaa mugti saa soo noqdo wuxuna waa dufin waxa koga waa difaac barbu xiriya wax xidhaa marka mugti buro waxaa ujeeda anaa waxay dufankii iyo mataqaanaa iyo fibriinkii iyo isku mataqaanaa isbahaystay ay waxaa waraya si wax buro kalaa xeertaas marka xaggee ka timaadaya qofka caadiga dee caafimaadka qabaa xeertada jirka xataa dadka cuno weeyaan soo gasha jirka soo gasha ama ha noqoto subag ama dufan ama ha noqoto mugti marka qofka caadiga jirka isticmaalaya jirka caadiga baa isticmaalaya mugti laakiin arrimo la xidhiidha cudurro ku dhaca jir ku dhici kara soo garan ama qofkii oo isticmaala dufan ka badan intii uu isticmaal energy isticmaali jiray markii badato waxaa loo yaqaano hybrid triglycemia dhacaya marka cholesterol faraha badan ee xadkeedii dhaaftay soo garan qayb kamid a markaa mugti jirkii dee xididadii saameyn geysanaysa mugti marka inta badan waxaa ka dhexeeya xiriir toosa ka dhexeeya cholesterolsha ama waxaa loo yaqaano lipidiska ama fatka loo yaqaano iyo xididada ku dhaca wadnaha ku dhaca marka qof kastoo taqaanaa cholesterolsha ay sareyso wuxuu u nugul yahay ama halis ugu jiraa inuu qaado wadna xanuun qaado aad iyo aad titore
wadnaha anoo ku kooban oo aan ka dhex bixi doono in muddo ah dufinta xeerta hadda aad sheegaysad waa xeer ku dhex dhalatay xididada quudiya wadnaha ma jirtaa xeed qofku bini aadamku xeer marbee soo gashaayo wuu cayiilayaa sidoo kale wadnaha isagana maku dahaarmaan xeertoo kale saameyn xididadiisiin maku yeelataa inta badan waxaan waxay ku xirantahay dhowr factor bay ku xiranta factor bay ku xiranta badanaba waxaweyaan laakiin inta badan waa wax ku xiran xagga ageka qofka soo koraya isagaa energy u baahanba qofka caadi ahaan soo koraya soo garan isagaa energy u baahan qofka jimicsi sameey sidoo kale jirkii wixii soo galay difir soo galay badanaa wuu gubayaa oo inta badan mataqaanaa inputkii iyo outputkii mogta inta badan way silakaanayaan mogta laakiin haddiiba qofkii da- gaaro matelba oo dufanku isticmaalayay uu ka bato jirka gubayo kale markaa mogta waxaa marasa intaan ku sheegayay in cholesteroshii iyo dufankii jirku ay markaa bataan mogta markaas keenaysa mataqaanaa in mustaqbalka muddo ka bacdi in markaa ay wadnihii xayloobo wadnaha xayloo loo sheegay wadnaha maaha waxaa xaylooya mogta waa xidadiida mogta waxaa ku ururaya dufankan ku sheegay mogta baagidaarkii xidadii ku ururaya mogta marka waad keenaysaa markaa in qofkii wadna xanuun ku dhaco waa tahay aada iyo aad ayaan u fahmay titore haddaan ka gudubno wadnaha gudihiisa haatan saameynta uu leeyahay waxaa jira titore in dad badan ee isku qasaan in qofka hadduu dhikar qabo wadnihiina uu ka xanuunsan yahay taas tusaale oo kale maxaa ugu shaafinaysaa qof maanta dhikar qabo u cabsanayo in wadnihii laga haayo qofka dhikarka qaba kaas macnaheeda inuu wadnaha ka jiran yahay miya dhikarku wax kala dhaca mogta dhikarka mogta waxay wadnihii sida afka caadiga mogta wadnuhu waxaweyaan markuu dhiig ka baxayo xididada halboodayaasha dhiigka raacayaan waxay ku raacaan waxa loo yaqaano bressure caadi ku raacaan mogta marka way badanaa isku xoran yihiin marka hore dhikarka bilowga hore waxaa jirin waa xididada jirin badanaa mogta oo adkaada marka dhiiggii wadnihi wuxuu doonaya xoog ku saaro oo dhiigga xididada adkaaday uu xoog ku dhaafo ayuu badanaa mataqaanaa sabab oo inta badan u ah laakiin mustaqbalka dambe haddii markaa wadnihii dee gaaro heer uu iska cabi kari waayo xididada cabi kari waayo way keenaysaa markaa wadna xanuun soo garan laakiin marka hore dee isku xoriyey waa laba cudur isku xiran oo kala mataqaanaa badaamaan ka dhexeeyo xiriir ka dhexeeyo soo garan waayo dhiikar waxaweyaan wadnihiibaa mataqaanaa brasharkii wadnaha ayaa saro kacay waxaana saro riday dee cudur ku dhacay maxidada ku dhacay ama cudur ku dhacay dhiiggii mataqaana ku dhacay ama cudur keliya ku dhacay mogta soo garan laakiin marka dambe qofka wuxuu qaadaya wadna xanuun buu halisuya inda u qaado mogta aada iyo titore anagoo soo gabagabeyn doono kadib adiga 2 su-aal ama 3 su-aal kadibba waxaa jirto in wadnaha inuu dhaqdhaqaaqo labdab uu sameynayo qofka haddii dhaqdhaqaaqi uu yareeyo gargaraacistiisii markii la tiriyo 1 minute ay yar tahay intii laga rabay ama ay ka badan tahay saameynahaas sidee qofka noloshiisii ee tahay iyada haddaan noo biyaanisid garaaca wadnaha waxaa mogta almost waa dee caadahaan waa la yaqaanaa waa mogta almost 70 adigu inta badan isku dhawaadi badan wadnu garaaca marka qofku wadnuhu wuuna ka badan karaa intaas qofka aan cudur qabin soo garan wuuna ka yaraan karaa qofka cudur qabin qofka dumasal bugta hala qaarkood cabo kafee cabo kale ama ordoo kale ama naxoo kale waxay jira loo yaqaano hormoono loo yaqaano mogta adrenalin kale soo deynaya soo garan marka waxaa kordhaya garaac wadnaha kordhaya cudur maaha hurdo kale marka qofka hurdo kale iyo carruurta mogta marka qaarkood kale waxaa laga yaaba mogta garaac wadnuhu uu hoos u dhaco mogta marka marxaladaas kale mogta cudur maaha laakiin hadduu hoosu maro hadduu konton matelba hadduu 50 ka hoos maro ama 60 ka hoos maro kale ama 100 ka sareeyo kale markaa weli la baaraa maxaa keenay soo garan meeqaa laga rabaa isaga inuu noqdo garaac qofka caadiga oo aan cararin oo degan 70 mogta 72 almost aan caadi mogta caadiga laakiin 60 ilaa 70 sagaashan ku hoos mari karaa inta waa average soo garan laakiin mararka qaarkood qofka mogta ordoo kale dee khasab mogta wuu kacayaa hadduu kafee cabo wuu kacayaa hadduu naxoo kale wuu kacayaa hadduu seexdo garaac wuu yaraanayaa soo garan marka kulli waa laakiin marka inta ka bato waxaa loo yaqaana arrhythmia
marka arritmia noqon kartaa mugti ama taaka arritmiya waxaa badanaya garaaca wadnaha waxaa loo yaqaana barad arritmiya waxaa yaraanaya hoos u dhacaya garaaca wadnaha marka labaduba waa cilada u baahan mugti in la baaro wixii keenay la baaro oo la ogaado okay marka qofka cilad haddii lagu arko kale maxaa lagu tuhmaya ma cudur uu qabaa qofkaas mugti la baaro ECG baa marka qofka la saaraya EKG baa la saaraya waxaa la eegayaa ritmika wadnuhu garaacayo ma caadiba ma si caadi u garaacaya mise mugti waa urus oo arrhythmic waxaa cilad khal baa jira mugti la garan karaa nooca mugti cilada jirta halka wadnankaasa marka ama echocardiography la isticmaalo ama ECG la isticmaalo aad aad tutore su-aasheeda aniga xaggeyga u dambeyso laakiin adigana maxay aad soo gabagabayn doontid cudurada wadnaha oo aad daqiiqada kale kusii doorsan doontid qofka ma jira qof caadi caafimaad qaba in uu isaga gacantiisii uu ku keeno in wadnihiisii uu cudur yeesho ma dhici kartaa in qofka isaga nafsadiisii uu wadnihiisii cudur u keeno sidee maana ama ha noqoto cunto uu qaatay ama shaqo uu suubiyey wax un bini aadan suubiyey ma ku dhici karta qofki inuu wadnihiisii uu ku jirado fact waxay wadnaha mugti waxay duwan cuntooyinka mas iyo dabeecadaha iyo caadooyinka ku dhow wadnaha waxay ku yeelan karaan saameyn qofku mugti ama sigaarka cabo kale ama daroogo isticmaalo kale ama waxyaala kale mugti cunto kale almost waxaasi khasab waxay qofka waxay keenaysaa imika mugti Soomaaliya kale dhulkeena kale jaad baa la cunaa marka jaadka qofka markuu cuno waxaa mugti ku dhacaya hurdaan ku dhacay waxay ma seexanayo wadni marka mugti qofka ku dhacaya wadna xarma ku dhici kara mugti soo garan qof mugti toosla qaad cudiyo kale hurdada ku yaraatay oo aan seexanayn wadnihii garaac mugti midta qofka qaas cuno fadhiyo oo wadnihii aad buu garaacaya marka horta dii keen kartaa qofka markuu sigaar badan cabo kale almost haddii qofku mataqaanaa dee cara badan yahay kale mata u dhaweyna ama nervous badan yahay almost wuxuu jira factor fara badan oo wadnihii maartay qofku u keeni kara dee cudur u keeni kara runtii gabagabada barnaamijka iyo wadnaha adoo soo gabagabaynaysa maxaa kusoo gabagabaynaysaa doctor waxyaabaadkii aan ka tagnay waxaan kusoo gabagabayn lahaa hal talo keliya mugti saa hadda kor sheegay waxayaan qofku inuu ogaado waxa uu cunayo cuntooyinka uu cunayo nooca yihiin uuna iska ilaaliyo mar qofka mugti dee da joogo ama da gaaro inuu mugti wixii difan kale iska yareeyo jimicsi badana sameeyo socdo lugeeyo mugti si taqaana markaa difanka jirka ku jiray dhiigga ku jiray ay u yaraadaan marka wadniina saameyn badan ayaan usoo gaadhin baan lahaa waa tahay tutor aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay adiga mudan waa tahay dhegeystayaal halkaas waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii bara cudurkaaga tutor maxamed xaashi inta badan uu hadba cudurkii uu is dhahaa waa u muhiim bulshada uu soo diyaariyo waxaan rajeynayaa in saddex isbuuc kadib aad naga daawan doontaan beedkan ama aad naga dhegeysan doontaan raadiyo ota ee Soomaali weyn mar kale kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo Okay.